asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibadeena qiimaha badan ee ku xidhan barteena facebook ee cadeeq xogtoon midhiya sidoo kale barteena youtube-ka cabdila deeqsi waxaan maanta idin haynaa dal ka mid a dalalka adduunka oo hablaha lagu iibsanayo lacag ka yar 350 dollar iyo sidoo kale wax aan qiimihiisu gaadhaynba 500 dollar. Saaxiib halkee ayaad joogtaa? Soomaaliya markaad joogtose ma aragtay meel hablaha wax ka yar lagu siinayo 300 dollar? Allah halkee weeyaan? Halkan waa wadanka Bulgaria, waa magaalada Stara Samera ee ka tirsan dalka Bulgaria, gaar ahaana waa suuq furma sanadkiiba hal mar. Saaxiib waxaa hablaha quruxda badan ee da'doodu u dhaxayso 19 ilaa iyo 15 sano jirka lagu iibinayaa suuqa weyn ee ku dhaca bartamaha tuulada Semered Eteria ee dalka Bulgaria dhexdeeda. Halkan waxaa sanadkii imanaya hablo ka badan 10,000 oo doonaya guur, kuwaasi oo aanan ka weyneyn dhammaantood 20-yaha 19 sano jir iyo 15 sano jir inta u dhaxaysa, oo qurux badan model ah, dad aad u qurux badan oo design ahaankoodana marka hore si weyn u qurux badan, si weyn usoo labistay, xaalad midii aad adigu jeclaatana aad ka xulanayso intaad dhex istaagto. waa sidii gegadii xoolaha ee aan tegi jirnay, kadibna aan 1 shilis ama 6 shilis oo kale aan kaxaysan jirnay saan u qalan oo kale. Tan haddaba ma qalinaysid ee waxaad ka dhiganaysaa xaaskaaga ama qofka aad nolosha la qaybsanayso. Saaxiib meeday wiilasha Soomaalida ee saa u raadin jiray gabdhaha Japan ama gabdhaha si weyn u raadinayay, adiga ayaa iska lahaanaya. xataa waxaa kaga daranay habruun hadday gabadhu bakri noqon weydo, xogta kale aan ognahay hadday bakri noqon weydo gabadhu waa iska soo celinaysaa markaad habeen iyo 2 maalin lagu siiyo oo iska soo eegto. waa haddii ay bakri noqon weydo waxaad ku celinaysaa kadib waxaad odhanaysaa gabadhiina bakri maahan lacagteedii celiya. wow war waa jaanis waalan ya Amerika. Saaxiib haddaba arrintan waxa weeyaan waa dalka Bulgaria, waa dal hayna kaaga baxay lacag badan inaad u socoto, waad socdaali kartaa mee wiilashii Soomaaliyeed. Hayaay waa harawya cagaadha waa hablo joof iyo johorad leh, hablihii Soomaaliyeed ee meeysa isku xayeysiinayay ee ragga meherka qaale ka dhigay barkooda kalena ay ku weerarsheen xafaayadkeen iyo caanankeen iyo maxaygankeen. waa ruuxii oo dhan waa laga raysay saaxiibayaal ee halkan ayaad ka duulaysaa Bulgaria ee tegaysaa. waa waqtiga uu suuqa furan yahay, waa waqtiyo ka mid ah waqtiyada guga, bilaha guga. haddii aan waqtiga cayino oon sheegnona waxaa la dhici karta inay wiilasha oo dhan marka wada yaacaan, laakiin adigu soo haysa indha website-yada ka booqo oo eeg Bulgaria maamo dheere ee saaxiib, kadibna waqtiga ay ku beegan tahay u duul una doono gabadh qurux badan. su-aal ayay weydiiyeen asxaab badan oo ku jirta bartiina gaarka ah ee Facebook oo han markaa soo dhagay, maxaad adigu doon weyda ka mid tahay? war anigu waxaan ahay wiil xaas leh ee ma ihi iskaabolo haddii aad tahay iyo shirti oo ku jira ee haddii aad iskaabolo tahay aad xaas hore yeelan waa tegi kartaa adigoo yaroo joof iyo johorle waad dhex istaagi kartaa, waxaanaad ka dooran kartaa xataa 500 kasii qaado, waayo iyagu 350 iyagu leeyihiin 500 ba uga dhig. marka waalidkii dhalay gabadha bulshadan waa dadka saboolka dadka iibinaya gabdhahooda iyo wiilashooda waad helaysaa saaxiib. wow saaxiib muuqaalka legree sidoo kalena barteena youtube-ka subscribe ku samee, sidoo kalena saaxiibadeena qiimaha badan ee ku xidhan barteena gaarka ah ee Facebook iyo YouTube-ka waxaan idinka codsanaa inaad u sheergalay saaxiibadeena kale ee Facebook. anala muuqaalka ka horreeyay waxaan kusoo sharaxnay hablo badan oo dhaqankoodii bedelay kadibna si weyn ugu dhex faafinaya baraha bulshada, balse saaxiib muuqaalkana soo daawayso kana legree una sheergalay saaxiibtada kale ee ku jira baraha bulshada. haddaba halkan waa Bulgaria, waa wadan aan kaa dheeray saaxiib, waxaanad arkaysaa gabdhaha quruxdooda, joofkooda, johoradooda, modelkooda iyo stoolkooda. haddii aad indhahaaga la raacday si fiican u eegtay saaxiib, adiguba waa tegi kartaa. waa hablaha garoobada ah, khaasatan waliba kuwooda bikrada ah, hablahoo dhan maaha. haddii gabadha la farafariyey gabadhnimadeedina mar la dhaafiyey waad iska daynaysaa, shaqadaadana maaha adiga, laakiin waxaad haysataa waqti sidii aad alaabtii electroniga oo kale lagu odhanay 4 saac kadib soo eeg oo soo qaali ayaad 4 saac soo haysanaysaa, kadibna haddii ay noqon weydo bikro ama mid tii aad rabtay oo kale ah bartooda ayaad kusoo celinaysaa, adiga oo aanan laga qaadin xataa wax magdhawa iyo wax lamid ah ee lagu celinayo lacagtaadii, iyadana ay reerkoodiisa ku ceshanayaan. ayaay waa jaanis weeye. laakiin saaxiib aan kuu sheego arrintan way jirtaa, waa Bulgaria, waa magaalada Artisa ee gobolka ka tirsan Bulgaria, laakiin
saaxiib ma aha dad muslina. Kow hablaheenu sharaf iyo karaamo ayay leeyihiin oo waa dad muslimiin ah boqolkiiba boqol. Waana dad Soomaaliyeed garanaysa dhaqankooda wanaagsan, sharaftooda, karaamadooda, maamuuskooda dhammaantood. Laakiin kuwan waa dad ka duwan dadkeenan amba dhaqankeenan lahayn, muslimiin ahayn, qaarkood haysan caafimaadkooda adigu xaqiijin karin, qaar aad dabeecadooda fahmi karin, afkooda aad fahmi karin, dhaqankoodana aad fahmi karin. Laga yaabaa inay sida Jiinaha qaarkood cunaan darxiga iyo wixii la midka ah, halka qaarkoodna ay sidoo kale ay waxay iyagu jecel yihiin ay sameeyaan. Saaxiib, markaa dhaqanka suuban ee ilaahayna siiyey muslimka iyo hablaheena Soomaaliyeed ee sharafta, karaamada iyo cisiga u saaxiibka ah gacantaada ku hayso, kuna dadaal. Ha ilaahu maykaaga ku noqoto $1,000,000, $250 beritoolana nagu noqoto wax kale oo xayawaan ma noqoto. Xayawaan baa laga heshiis mise qof baa laga heshiis mataqaanaa aduu aqoon walid. Waa bini aadan haa, laakiin wixii laga heshiis mid dabeecad garanaysa, isbaaf garanaysaan, isma dhaqan garanaysaan. Marka hadduu waji kala yeesho beritoole xagee ayaad u raacaysaa. Midda labaad, haddii uu sax noqon waayo caafimaadkiisa iyo waqtigiisaba, maxaad adigu hadhow ka jawaabaysaa? Maxaa ku geeyaa ku qasbay? Yaa gacanta ku qabtay? Yaa kuu geeyay hadhow toole? Laakiin gabadh Soomaaliyeed ah inay hebel hebel ah ambaba aad garanayso jinsiyadeeda, qabiilka ka soo jeedo ayaa laga timi. Haddii aad nolosha la wadaagto amba aad gacanta ka qabsato, waxaad tahay qof xurmad iyo karaamo iyo sharaf helay oo ay dadku ku xurmeynayaan, sidoo kalena ay ugu ducaynayaan bulshada Soomaaliyeed. Oo la leeyahay hebel iyo heblayo ayaa maanta isguursaday, wiil iyo caano, gabadh iyo caano. Sidoo kalena waalidkaagu ay ku farxayaan oo ay si wanaagsan kuu soo dhaweynayaan, kuwana dhiirigeliyaan inaad oo dambi iyo hore ugu talaabsato. Sidoo kalena waa qof iyada ku dhiirigelinaysa oo ku garab taagan kula qaybsanaysa dhib iyo dheef wixii aad dunidan ka soo martaba. Haddaba saaxiib, markaa iska ilaali inaad waxyaalahan aan muuqaalada kusoo faafinay aad u tagto ilaa Bulgaria ama aad qarash kaga sii baxo. Taas waxaan arkayay wiilal badan oo ku jiro aan idhaahday magaciisa inaan soo sheego ma doon, laakiin waxa uu soo dhigay wiil isagana la yiraahdo Cabdikariin Cali Aadan oo isaguna page-kiisa Facebook soo dhigay ayaa jiro hablahan oo kala. Laakiin saaxiib iska ilaali iyaysan kugu qaldin. Dad badan ayaa jiro wax xafiis ku raadsanaya ee wax muuqaal ah ama wax sax ah ma aha saaxiib. Aad baad u mahadsantahay.